بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ku soo gudbinaynaa casharkeeni shanaad ee maadada xisaabta gaar ahaan ciwaanka fraction maanta waxaan diiradda saaraynaa waxa loo yaqaano complex fraction amba jajab adag waa jajab isku dhafan waxaan casharkan ku baran doonaa sida loo xalliyo jajabyada adag waxaan baran doonaa maanta sida loo xalliyo jajabyada adag amba complex fraction ayaan tig saari doonaa doo la yiraahdo way tusaalaha koowaad maxaa la siiyay waxaana la yiraahdaa xalli jajabkan طبعا jajabkan soo baran jirno waxa jira intaan amba waxa jira inta waa laba jajab oo la isku diray intana waa laba jajab oo la isku diray u qaybiya u dhaxaysa markay noocaan noqoto oo korna gooni uga shaqay tahay hoosna gooni uga shaqay ayaa waxa loo yaqaanaa complex fraction loo yaqaanaa amba jajab adag loo yaqaanaa waaya furfurdhe intaanan soo qaadan wax kale maanan sameyn hal loo qaybiyo labo lagu diray laba loo qaybiyo saddex loo wada qaybiyo saddex loo hoos dhigay afar lagu diray shan loo hoos dhigay lix markaas waxaan sameynaynaa mugastaafka koob maxaan sameynaynaa maadaama kor ay tahay fraction madax bannaan hoosna ay tahay fraction madax bannaan oo ku dar ka dhaxayso hoosna ku dar ka dhaxayso waxaan sameynaynaa isdhaafan isugu dhifanaynaa saddexdan hooseeya qaadaynaa waxaan ku dhifanaynaa hal saddex hal ku dhifo meeqa ah saddex intaan ku qoranaynaa ku dar calaamadana soo qaadaynaa maxaan dhigaynaa ay labadan isku dhifan mayno labadan isku dhifan marka laba ku dhifo afar waa kana afar inta dhigaynaa saddex lagu diray afar loo wada qaybshan leena calaamadan yar iyo midaan yar isu gudbina hal calaamadan ka dhigaa loo wada qaybsh labadan hooseeya isku dhifo laba saddex ku dhifo maxay noqday lix kor maxay soo baxay marka saddex lagu diray afar loo dhigay lix oo calaamadan weyn soo qaado oo loo wada qaybshaan qaybtana sidaan sameynaa lix saddex ku dhifo 18 lagu daray afar shan ku dhifo 20 calaamadan iyo calaamadan isu gudbi hal calaamad ka dhig loo wada qaybshadi hooseeyana isku dhifo afar lix ku dhifo meeqa 24 waaya stepka halkaas uu noo joogaa sii soco marka waxaan sameynaynaa labadan isku darsanaynaa muga saddex lagu diray afar meeqa todobo loo hoos dhigay lix waa tan todobo loo hoos dhigay lix calaamadan weyn soo qaado waa tan 18 lagu diray 20 dhabaxa waa 38 la hoos dhigay 24 jiif aan qoraynaa ama jiiftaxan ka dhigaynaa markaan jiiftax ka dhigayna labadan soo qaadana ugu koreyso waa todobo loo hoos dhigay lix calaamadan u qaybinay hore jiif aan qoraynaa calaamadan iyo calaamadan u qaybi u taagan isku mid waay laakiin qaabka uu qorinay kala duwan yihiin todoba loo dhigay lix loo qaybiyo 38 loo dhigay 24 iyo todoba loo dhigay lix loo qaybiyo 38 loo dhigay 24 isku micno waay isku qiimo waay wax farqi uma dhaxayaan qaabka uu qorin bis kala duwan yihiin marka waxaan qoraynaa qaabkan jiiftaxa bis aan qoraynaa calaamadan u qaybigi la yaqiina caadiyan ka dhigaynaa waay waxaan geysanaynaa marka page-kan kala nagay marka page-kan kalmaan geysanayna intaan sideeran soo qaadanaynaa todoba loo dhigay lix loo qaybi 38 loo dhigay 4 waxba kama bedeli sideeran soo qaadanaya qaybtan isku yareynaynaa 38 iyo 24 oo la isku yarey karaa intaan waa soo ceshanaya todoba loo dhigay lix loo qaybiyay 38 iyo 24 maxay wadaagaan labay wadaagaan inta laba u qaybinaya marka 38 lagu qaybi 19 24 lagu qaybi 12 isku yareeyay bis wax kale ma aanan sameyn hay stepka aan sameynaa stepka halkan way taagan tahay fraction waa soo barna calaamada uu qaybida ku dhifashay loo bedelaay ka dambana waa la kala rogaay inta sameyn labis todoba loo dhigay lix soo qaado calaamadan ku dhifashay bedel halkan kala rog 12 kormar 12 loo dhigay 19 yaas la bixi karo marka todoba iyo 19 maxaa ka dhaxeeya waxba kama dhaxeeyaan lix iyo todoba maxaa ka dhaxeeya lixa ka dhaxaysa labadan isku yareynaya marka lix aan u qaybinayaa maxaa soo baxaysa laba soo baxaysa haye lixna waxa u qaybinayaa lixna lixdan lix aan u qaybinaa maxaa soo baxaysa hala soo baxa inta hala iga soo baxa intana laba kormuga laba iyo todoba isku dhifanaya waxay noqonaysaa laba lagu dhifto todoba loo qaybiyay calaamadan iyo calaamadan isku gudbaya loo qaybiyay hoosna maxaa iga soo baxa halkan oo lagu dhifto 19 hal lagu dhifto 19 bis isku dhifo marka todoba loo ku dhifo 14
هل 19 ku dhifo 19 jawaabta ugu dambaysa complex fraction kii soo siiyay complex fraction waxa soo baxaya 14 loos dhigay 19 halka ay ku soo gabagabowaysaa waya casharkayda ma soo ku dhamaaday daawadayna sharafta badan haddii aad wax ka faa'iiday waxaan ka codsanaynaa channelka inaad subscribe noo tiraahid